عبد الفتاح مدحوينه هore dowladda Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo saddexdii xubnood ee la socotay ayaa saaka la keenay maxkamadda waana markii saddexaad ee la keeno 42 maalmood kadib haddana waxay xeer ilaalinta codsatay in 10 maalmood oo kale la siiyo saasna waxay isku noqon doontaa 52 maalmood haddaba cabashooyin hore oo madaxweynuhu iyo xubnahan la socdaba ay hore u cabanayeen baa jiray oo ah in aan qorraxda in badan la tusin iyo in af Soomaaliga dadka ku hadla af xamaarka garanaynin ee ehelkooda markay isu yimaadaan qasab laga dhigo inay af xamaar ku hadlaan ama ayna la hadlin iyagoo yimid ay iskaga tagaan marka tanna saddexdii jeer hore way ka cabanayeen haddaba garsoorihii maanta maxkamadda fadhiyay ayaa xeer ilaalintii in badan la hadlay wuxuu ku yiri saddex jeer oo hore ayaan siinay fursad haddana fursad labaad baan siinay marka waxaad samaysaan buuri marka aad hadda noo timaadaan ee 10ka bari dhamaato waa inaad la timaadaan buuri dimuqraadiyadiin iyo dambiyada dadkan aad ku daba haysaan ma waxaad rabtaan buuri inaan aad sanad iska jiidataan baad rabtaan ereygaas oo isticmaalay oo garsoorihii uu ku yiri madaxweynuhuna markiiba wuxuu yiri maadaama iscafis aan ku jirno oo xilli iscafis oo ra'iisul wasaaraha waliba arrintaas ka timid 12 sano waddanka soo shaqeynay waxaan ka codsanaynaa buuri ra'iisul wasaaraha oo fariinta naga gudbisaan haddaad maxkamadda guutihiin in cafis naloo fidiyo haddaba arrintu saasay ku dhamaatay 10 bari kadibna waan sugi doonaa bal waxay la yimaadaan xeer ilaalintu iyo dambiga lagu soo ogo xubnahan iyo waliba madaxweynaha hore dowladda Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar